bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal halkan waa warbaahinta xogta dalka qodobada aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxaa ugu waaweyn wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo shaaciyay guud ahaan imtixaankii socday uu fashilmay dibna loo geli doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqeynaya dardargelinta qorshaha deyn cafinta Soomaaliya garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Beledweyne oo maalintii saddexaad aan shaqeynayn kadib roobab xooggan oo ka dhacay magaaladaasi madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale uu qaabilsanaha UK ee Soomaaliya bin Fenda oo kulan xasaasi ah ku wada qaatay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaasi madaxweynaha maamulka Puntland oo goobjoog ka noqday munaasabad gawaari dabdamiska loogu wareejinayo magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal wasiir ku-xigeenka biyaha iyo macdanta Jubbaland oo faahfaahin ka bixiyay mashruucyo ay wasaaraddiisu ka fulisay magaalada Garbaharre ee gobolka Gado gabar Soomaaliyeed oo 16 jir ah oo garsoore ciyaareed ka noqotay gudaha dalka Norway akhbaraadka Soomaalida ka baxsan aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxaa kamid ah mid kamid ah madaxweynayaasha hogaamiya wadamada ugu yaryar caalamka oo la amaanay kadib markii uu wadankiisa ku dhaqay shareecada islaamka iyo hogaamiyihii dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashiir oo dacwad lagu soo oogay markale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal halkan waa xogta dalka waa talaado waana 14 May 2019 u diyaar garooba daawashada qodobadii aad daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo ka soo hormuuqday telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in guud ahaanba uu fashilmay imtixaankii socday oo laga qaadayay ardayda Soomaaliyeed ee sare u dhaafay 13500 arday wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu tilmaamay in imtixaanaadka ay goobihii lagu talagalay qaarkood u shaqeynayeen si xor iyo xalaal ah ay jireen goobo qaar oo isku dayay inay ka sameeyaan faa'iidooyin imtixaadka isla markaana ay beecgeeyaan sida uu hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay in waalidiinta iyo maamulada qaar ee dugsiyada ay kaalin ka qaadanayeen imtixaanaadku inay noqdaan kuwo fashilan iyo sidoo kale kuwo suuqyada lagu kala iibsanayo waxa uu sandah saarin wasiirku in saddex maalmood oo imtixaanka ay galeen ardayda Soomaaliyeed ay guud ahaanba ahaayeen kuwo suuqyada laga heli kara sidaa daraadeed ayuu ku tilmaamay inay tahay wax aan macquul gal ahayn wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo sii hadlayay ayaa carabka la dhacay in imtixaanaadkii guud ahaan la burburiyay maalinta talaadada ahna uusan jirin wax imtixaan isagoo intaas ku sii daray in imtixaanaadka dib loo bilaabi doono 27 bishan May isla markaana uu socon doono ilaa iyo 31 May waxa uu wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre intaas ku daray in imtixaanaadka laga adkeyn doono sidoo hore isla markaana 5 maalmood uu socon doono imtixaanaadka aysan jiri doonin wax internet amaba bara bulsho oo ka shaqeyn doona gudaha dalka Soomaaliya tani ayaa ay ku kala aragti duwan yihiin ardayda u fadhisay imtixaanaadka sanadan isla markaana ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ardayda qaarkood ayaa u arkaa mid faa'iido ugu jirto inay ku taxadaraan isla markaana ay waxbarashadooda kaalin sare ku galaan halka kuwa kalena ay muujinayaan dareen ah in iyaguba ay hufnaan iyo dadaal galiyeen in ay qashaan imtixaanaadkana halkaasi ay ka raadinayeen waqtina ay galiyeen wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay guud ahaanba inay ku fashilantay ka taxadaridda iyo ilaalinta imtixaanaadka midaysan oo 13500 arday sare u dhaafaysay ay ka qaadaysay kuwaas oo ku galayay magaalada caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka balse waxa haatan muuqanaya inay dadaal u bilowday wasaaraddu in haatan ay ka xaaxaabato dhulka isla markaana ay isku daydo imtixaanka fashilmay inay dib u qabto dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqeynaya ololaha dardargelinta qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya dhamaystirka qorshaha deyn cafinta dalka kaas oo haatan meelihii gabagabada ahaa maraya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa hogaaminaya isla markaana gudoomiye looga dhigay guddigan oo xubno ay ka yihiin wasiirada maaliyadda kan boostada kalluumaysiga qorsheynta dekedda wasiiru dowlaha maaliyadda iyo gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya guddiga ayaa labadii toddobaadba mar waxay yeelanayaan kulan looga hadlayo meesha uu marayo qorshaha deyn cafinta dalka iyo dardargelinta si ugu dambeyn dalka deymaha looga cafiyo Soomaaliya ayaa waxa ay qabtaa lacag deyn oo bilaayin dollar kaas oo haatan ay ku haminaysan caalamku ka cafiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaana dhawaan shirka ka qayb galay magaalada Washington ee dalka Mareykanka
halkaas oo ololahooda ugu sareeyay u ahaan deymaha laga cafiyo Soomaaliya. sidoo kale wixii ka dambeeyay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kulan kale oo deyn cafinta ah waxa uu kaga qayb galay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya. Soomaaliya ayaana quudareynaysa isla markaana dadaaladii ugu dambeeyay gelinaysa sidii guud ahaanba looga cafin lahaa deymaha balaayinka ah oo Soomaaliya ay deymaha u qaadatay intii dalku ku jiray burburkii sanadii 1991 ilaa iyo haatan. dhanka kalena waxaa maalintii saddexaad xiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib roobab hareeyay gudaha magaaladaasi. wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan xarunta u ah ayaa waxay sheegayaan in guud ahaanba ay xiran tahay garoonka diyaaradaha ee magaaladaas. labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in garoonka diyaaradaha Beledweyne uusan shaqeyn kadib markii daad uu kusoo rogmaday garoonka ay xireen kadib roobab guga oo halkaasi ka da'ay gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaano hoostaga. runtii roobabkii guga daadad uu watay iyo sidoo kale carro ayaa xiray garoonka diyaaradaha Beledweyne maalmahan ma uusan shaqeyn. qofkii xamar u socda gaari ayuu Gurceel ku tagayaa si uu diyaaradu ka soo raaco ayuu yiri qof ka mid ah dadka gaaray magaalada Beledweyne oo warbaahinta la hadlay. sanad kasta marka la gaaro xilligan oo kale ayaa waxaa gabi ahaanba xirma garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne oo aan wax diyaarada ka soo degin kadib markii ay galaan biyo fara badan markii roobabka uu ka da'o halkaasi. gobolka Hiiraan ayaa qayb ka ah gobolada la mashaqooda roobabka xilligaas oo ay ku soo fatahaan wabiyada halkaasi mara iyadoo maamulada iyo dawladda dhaxaba dhowr goor oo hore loo diray digniino ah inay ka taxadaraan in ay ku fatahaan wabiyadu walow aysan jirin wax laga qabtay baaqyadaasi. saaxiibayaal qaybaha dhexe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysaan markan. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo muqaabilsanaha dawladda UK ee Soomaaliya Ben Venda ayaa kulan xasaasi ah ku wada qaatay magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Ben Venda kaas oo gaaray magaalada Hargeysa. kulanka waxaa laga wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen sidii looga wada shaqeyn lahaa siyaasadda guud iyo ammaanka mantiqada geeska oo Somaliland ku leedahay door muuqda oo caalamku ku ixtiraamo diyaar garowga iyo qabsoomidda arrimaha doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka geediga dimuqraadiyadda dardargelinta iyo kor u qaadista kaalmooyinka horumarineed ee dawladda Ingiriisku ay ka fuliso deegaanada Somaliland. waxaa madaxweynaha iyo safiirka iyo sidoo kale wafdiga uu hogaaminayay warbixin mug iyo sidoo kale miisaan leh uu ka siiyay horumarka ay ku tallaabsadeen shacabka Somaliland oo ah horeyba mid u muuqata ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Somaliland. dhinaciisa waxa uu safarka madaxweynaha ku bogaadiyay sida qiimaha leh uu qaabilay iyo sidoo kale warbixinada waafiga ah uu ka siiyay horumarada ka soconaya deegaanada Somaliland. si kastaba ha ahaatee safiirka dawladda UK u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ben Venda ayaa kulamo gooni la qaadanaya madaxda dawladda Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka Somaliland. maamulka Somaliland ayaa daneynaya gooniisutaag iyo sidoo kale inuu ka goosto dalka Soomaaliya iyadoo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamkuna ay ku howlan yihiin sidii dib loo soo dhaweyn lahaa xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qayb galay munaasabada magaalada Garowe loogu wareejinayay gawaarida dabdamiska. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qayb galay munaasabada ay degmada Garowe kala wareegaysay 3 dabdamis iyo booyad biyaha shirkadaha isgaarsiinta ee Golis. munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Nugaalkan degmada Garowe mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha Puntland ganacsato maamulka sare ee shirkadda Golis iyo saraakiil ka tirsan maamul goboleedka Puntland. madaxweyne Deni oo hadal ka jeediyay goobta lagu wareejinayo agabka ayaa ka dheeraaday ahmiyadda ay leeyihiin dabdamiska iyo sidoo kale iskaashiga dawladda iyo shacabkeeda wuxuuna bogaadiyay guud ahaanba dadkii ka soo shaqeeyay arrimahan. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa shirkadaha kala duwan ee Puntland ka howlgala waxa uu kula dardaarmay isla markaana ku booriyay inay xoojiyaan adeegyada ay ku horumarinayaan bulshada. ugu dambeyn madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dhawaan la soo bandhigi doono qorshe dawladeed oo ku aadan dhinaca horumarinta kaas oo in muddo ah laga shaqeynayay isla markaana arrimo fara badan lagu iftiiminayo. tan iyo markii madaxweyne maamul goboleedka Puntland looga dhigay Saciid Cabdullaahi Deni waxaa muuqanaya dardargelin iyo sidoo kale howlo adag uu qabanayo hogaamiyaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. saaxiibayaal warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysan inagoo qodobada Soomaalida gudaha kaga jirna markan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo macdanta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay mashaariic ay wasaaraddiisu ka fulisay magaalada Garbaharey.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta Jubbaland Mudane Cabdirashiid Maxamed Ducaale oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa gobolka Gedo gaar ahaan magaaladiisa Garbaharre ee xarunta gobolka ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. Shir jaraa'id wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Jubbaland uu ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa wuxuu kaga warbixiyay howlihii shaqo uu kasoo fuliyay halkaasi. Mashaariic horumarineed oo dhanka biyaha iyo tamarta ah ayaa laga hirgeliyay degmada Garbaharre waxaana kamid ah layrarka cadceedda ku shaqeeya iyo ceelbiyoodyo xariga laga jaray. Geesta kale wasiirka ayaa kormeeray xarumaha waxbarashada iyo xarumaha dowladda ee magaalada Garbaharre wuxuuna ka warbixiyay howlaha shaqo halkaasi uu kasoo qabtay. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u diyaar garoobaya doorashada madaxtinimo oo bisha Agoosto halkaasi ka qabsoomi doonta iyadoo qaar ka mid ah wasiirada wasaaraduhuna ay wadaan dardargelin iyo sidoo kale shaqooyin iyo waajibaad ay u gudanayaan si wanaagsan tan iyo markii uu madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Salaah Axmed Madoobe uu ku booriyay in wasaaraduhu ay laba jibaaraan howlahooda. qaybaha dambe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysan markana gabar Soomaali oo 16 jir ah ayaa wacdara ka dhigtay garsooranimada ciyaaraha ee dalka Norway. shaqada garsooranimada ama arbiteraha ayaa ah shaqo aad u adag. Sumaye Shidane waa gabar Soomaaliyeed oo 16 jir ah oo ku nool magaalada Overhaul ee gobolka Trøndelag waxayna kamid tahay garsoorayaasha ciyaarta kubadda cagta kooxaha dhalinyarada ee dalka Norway. waxa igu dhaliyay walaalo badan ayaan leeyahay oo aad u jecel daawashada kubadda cagta. waqti aan wada fiirsanay ciyaaraha Champions League iyo Premier League aan taageero kooxaha Barcelona iyo Liverpool. markii dambe waxa igu soo dhalatay inaan noqdo garsoore ayay tiri gabadhan oo la hadlaysa BBC-da. Sumaye waxay kasoo muuqatay warbaahinta iyadoo xijaaban oo ku guda jirta shaqada garsooranimada oo markii u horeysay ay qabatay sanadii 2018. waa shaqo adag oo u baahan firfircooni iyo feejignaan. Sumaye ayaa hadalkeeda intaas ku sii dartay. waxay tiri waxa ii fududeeyay howlahan in aan sameeyay galgal fara badan isla markaana dad fara badan la xaajooday balse iyadoo ay ugu horgo'naayeen dhagaxaan fara badan ugu dambeyn waa ka gudbay waxaana noqday mid ku guuleystay hamiyadii aan lahaa ayay tiri gabadhan oo la hadlaysa BBC-da. si kastaba ha ahaatee gabdhaha Soomaaliyeed ayaan qayb ka ahayn dadka ugu firfircoon ee garsoorayaal ka noqda kubadda cagta balse gabadhan 16 jirka ayaa horseed u noqon karta gabdho fara badan oo Soomaaliyeed. saaxiibayaal warka xogta dalka ayaa daawanaysan akhbaraadka Soomaalida ayaa intaas kaga gudbeenaa iminkan akhbaraadka dibadda. mid ka mid ah hogaamiyaasha wadamada yaryar ee caalamka ayaa indhaha caalamka soo jiitay kadib markii wadankiisa uu ku dhaqay shareecada Islaamka. dalka Peru ayaa si weyn looga hadalhayo caalamka kadib markii dalkaasi lagu soo rogay ku dhaqanka shareecada Islaamka isla markaasna la ciqaabayo cidii geysatay dambiyada sida zinada balse weli waxaa halkaasi ka taagan aamusnaan sida uu ku waramayo mid ka mid ah wariyaasha BBC-da. caasimada Brunei waa Bandar Seri Begawan waana magaalo xasiloon waxaana ku taala masaajido waaweyn oo lagu xardhay qoraallo lagu qoray farta Carabiga oo dhalaalaya waxaana sidoo kale lagu arkayaa wadooyinka magaalada sawir hogaamiyaha dalkaasi Sultan Hassan Ali Bolkiah ninka la yiraahdo. dalkan waxa uu kamid yahay dalalka yaryar oo weli ku haray nidaamka ku saleysan dhaxaltooyada maamulka ee adduunka. sultaanku waxa uu awood ku leeyahay baarlamaanka dalkaas sidaas oo ay tahayna ninkan oo aan horumar fara badan iyo magac ka sameeyay caalamka ayaa haatan rajeynaya in magaca ugu sareeya ee dunida uu ku sameynayo uu noqdo ku dhaqanka wadankiisa inay ku dhaqmaan shareecada Islaamka. ugu dambeyntiina hogaamiyaha dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa ugu dambeyn dacwad lagu soo oogay. Suudaan ayaa dacwad ku soo oogtay madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi Umar Hassan al-Bashir waxaana lagu soo oogay inuu geystay kicin dadweyne iyo inuu ku lug lahaa dil loo geystay dibadbaxyaal sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dacwadoogaha guud ee wadankaas. ilaa haatan lama hayo wax war oo ku saabsan xaaladda al-Bashir tan iyo markii xukunka laga qaaday 11 bishii Abriil iyadoo inqilaab ay ku sameeyeen booliska dalkaasi. horraantii bishan waxaa al-Bashir lagu amray inuu ku soo hormuuqdo xafiiska dacwad oogaha dalkaasi wax looga weydiiyay eedeymo musuqmaasuq iyo sidoo kale maalgelinta ururo argagixiso walow guud ahaanba uu dhagaha ka fureystay. qaar ka mid ah qoyskiisa iyo isagaba ayaa wajahaya ciqaab iyo dhibaato saatay ilaa haatan lama oga halka uu ku dambeeyay Umar Hassan al-Bashir iyadoo dacwadna ay ku soo ogtay dacwad oogayaasha sare ee dalkiisa Suudaan. guud ahaan saaxiibayaal war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaraad ka daawanayseen xogta dalka waa inaga intaa waa ku mahadsantihiin daawashadiina hase iloobanina in aad si aad inoola socotaan wararkeena iyo warbixinadeena aad u haataan kuwa ugu horeeya ee hela inaad kanaalkan saartaan subscribe tan iyo kulan dambana nooli kulantay nabadgelyo